السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وان إذن سلامي دمانتينا وأولاشين ومهارون بليس تا kanaalkeyga ka heshay subscribe maanta waxaa inoo wadaa qiso dhab ah oo qiso dhacday ah oo aniga aan dhageystay qisadani waxay ku bilaabanaysaa laba gabdhood oo isla dhalatay labadii gabdhood oo isla dhasheen midda yar midda 5 sano yareed midda yar nin odaya guursado ka da'weyn markuu guursaday adiga sanadii hore kalkacayl ay ku noolaayeen ninkii iyo ayada ilaa 6 sano sanadkii 7aad markay galeen ninkii naagti sidii ma u rabo buuqoodina wuu batay markaasi gabadhii waxay istir amuu naag kale hoos ka wataabo ama naagaha ma iska shukaansadaa tijaabi ninkan tii yareeda ku fakartay way oroday walaasheedii ka weyneeday u tagtay abaayooy ciwaanaa samaysanayaa ninkan aniga waa jeclaa asagana ima rabo maxaan sameeyaa ciwaanaa samaysanayaa ciwaan qarsoodi ah oo magacuuna aqoonin waa ku darsanaynaa waan arkaynaa bal inuu weli i rabo iyo inuu i kala jeclaynin ciwaankii samaysteen way la hadleen ninkii waa usoo jawaabo waa ku rabaa iyo sheeko iyo wuxuu bilaabay shukaansi gabadhii way iska ooysay way soo baxday gurigeey soo aaday tii walaasheedii weyneed ninkii sidii ula sii hadlaysay maalinta dambe isbalansheen markay isbalansadeen ee u tagtay ninkii waba ka helabo wuxuu ka helayaa waa dumaashidiis wuu yaqaanaa laakiin ciwaan qarsoonida ay kusoo gashay oo runtii u sheegtay marka dumaashidii waxay ku tiri walaashay ka dambeysay waa kaas xaalad saas ula soco gabadhii meeshii ee shakisatay yaraad shakiyaa ku batay ninkii waba ka sii fogaanayaa maalinta dambe baabuurkii ka daba qaadatay markuu baxay ee ka daba baxday markay ka daba baxday waxay ugu tagtay meelo adiga soo u daba socotay meelay baabuurkii ku baakinteen meeshii ay baabuurkii ku baakintay agteeda waxaa ku baakiman baabuurkii walaasheed because way taqaanaa maho wax yar kadib baabuurkeedii kusii dhex jirtay meeluu galay ayagoo gacmaha is haysto garba isku dhaganay kasoo bixin walaasheed iyo ninkeedii way qaracantay way iska ooysay haddana way habeenkii marka weli shaki kuma jiro nafteedii ma dhuhayso shaki waa waxaan haddana waxay istiri habeenay cashe u samaysay way marti qaaday walaasheed iyo ninkii inay ogaato waxba maysan u sheegin way ka qarinayeen maalintii dambe way runtay sheegtay markuu is celin weysay markaasuu ku yiri walaashaan jeclahay ayadana way jeceshahay maasalaam walaale noo kala safaaradaha noo kala qaad gabadhii yareed markay sidaas lagu yiri guriga laga soo buriyay gabadhii markaas maxkamaday ka soo dacweysay aniga marka maxkamadda san dhageystay maxkamaday ka soo dacweysay maxkamadii markay ninkii oo imaaday kooda hore ninkii soo dacweysay ninkii markii soo dacweysay ninkii adi waxaa looga qaaday bil kasto inuu biilo oo lacag biila siiyo laakiin gurigiisa inay ka baxdo maxkamadii ay go'aamisay haddana wax yar kadib walaasheedii ee maxkamad soo saartay marka walaasheed waxay leedahay waa tii weyneedya oo ninka qaadatay waa noloshan kaa qariba ay leedahay markaas waxay tiraahdaa adiga nolosheedii iyo maskaxdeedii dhaawac gaarsiisay laakiin aniga inaa lacag kaa qaata igu balanay leedahay tan yarni 200 kun oo euro waxay tiri hal iga qaado maadaama walaashay niyad iga jibisay ee ninkeyga iga qaadatay maxkamadii markii dambe waxay go'aansheen gabadhii 200 inaan laga qaadin laakiin xaq waxay u lahayd ninka inay tiraahdo la dhahay ninka haday dhihi lahayd asaga lacag hal iga qaado waa looga qaadi lahaay walaashii marka weyneed oo ninka qaadatay waxay leedahay walaashay sariirtaadii ani ninkaniti علشان jecel ku sameynano sariirtaadii korkeedii farxadda ogowno علشان ogow gurigaaga inaan ka baxday oo aniga li igu soo wareejiyay
sariirtaada inaan aniga ku jiifto aniga ninka inaan jecel ku jirano saas u ogow. wax yar kadib hooyadii ay imaanayso. hooyadii marka waxay la safan tahay gabadha la dulmiye, tan yar oo la dulmiyey la safan tahay. hooyadii markay imaatay waxay leedahay aniga maba maxay ahaayeen gabadhahayga xaalad noocaan ay ka dhacee ama gurigayga qiso sidaana ka dhacee maba ku fakareyninbo. tii weynaad hooyadii u imaanay, hooyo raalli ahaaw waa ku raali gelinaa, laakiin walaashay cunug ay ku siin weyse calashaan cunug ayeeyo u noqotid way ku dhali weyse 7 sano ninka isqabeen aniga hadda dhalaayo. dadkii dhan ku oriyeen. dadkii dhan marka waxay u codeeyeen walaashii oo maxay ahaayeen maskiinta ahayd oo ninkii laga dhacay. ani ahaanteeda xataa aadan u xanaaqay, qisada waaba ku xanaaqay, waaba anaa nervous iga dhigtay. marka adinkana tala ka keenay yaa saxsan. ninkiina wuxuu taagan yahay waa jeclahay dumaashideeyaa ma jeclahay. adiga way noo kala dhamaatay. walaashiina waxay leedahay ninkan waa is jecelnahay. gabadhii yareedaa marka dhexda ka baxday. asalaamu calaykum.